بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ودراسينتي كتاب كان بقولك حديثها مسلسل كيسي نوسو السعودي وانا عجلديسي أما واقيتي شنية طبنات وحنو كبلا بدونا بإذن الله عز وجل حديثك كوبي أفرتنات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. حديث كان وحاورنا يا الإمام البخاري باصوصاريا والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وحيلذا عائشة رضي الله تعالى عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هدي أوسو هليل لها أو أوسو جاري لها أو نوللك سو جاري لها ما أحدث النساء هوانك وحا أي قدالك كينين أما أي قدالك قسو دريين نول الشوضة لمنعهن المسجد نبي مساجد كواودي لها دمرك كما منعت سيدا لوغودي دي نساء بني إسرائيل غير بني إسرائيل هوان كودي سيدا لوغودي دي أوكلا أي نبي محمد أودي لها صلى الله عليه وآله وسلم هوان كيسا. عائشة وحي لذا هاي وحي كشاكي نساء نبي قداشي صلى الله عليه وآله وسلم haweenku waxa ay ku soo dareen jirkooda ku soo dariyeen oo qurux ah banaanka ugu baxaan dhar qurqurux badan oo barfuuna cadar iyo idgoon iyo uunsi ah oo haweenku jirkooda iyo dharkoodu u isticmaalaan wixii noocaas oo dhan oo qurux ah, ha noqoto xagga socodka, ha noqoto xagga labiska, ha noqoto xagga cadarka iyo barfuunka, ha noqoto waqtiga la soconayo, ha noqoto ikhtilaadka, waxaasoo dhan isku soo daro. waxay caaisha leedahay waqtigan aan noolahay hadduu nebi moxamed noolaan lahaa sala allahu calayhi wasalam haweenka waa u diidi lahaa masjidka. masjidku waa meesha lagu cibaadaysanayo, meesha ugu fadliga badan, wa maca daalika waa u diidi lahaa bay leedahay. oo sababta loogu diidayo waa maxay? gabdhaha waxaa laga rabaa aadaab iyo akhlaaq iyo anshax. waddada markay soconayaan waa inay waddada dhinaceeda socdaan. waddada markay soconayaan waa inayna waddada bartankeeda soconin. waana inayna cadar iyo barfuun iyo uunsi iyo wax carfayo ragga soo jiidanaya, kamkamaya, wadnaha ku dhufanaya ragga xanuunsan weliba waa inayna soo marsanin. maxaa yeelay ragga waxaa ku dhaca cudur la yidhaahdo, dumarkana waa ku dhacaaye maradu shahwa, waa cudur ku dhaca qalbiga qofka ninka ama gabadha, jeedadiisuna ay tahay shahwada iyo waxyaalaha la xidhiidha jinsiga ayuu qofku jeclaanayaa. saa daraaddeed ayaa shareecadu waxay samaysay wax la yidhaahdo saddun liddaraa'ic. iska inta aan roobku intuusan soo di'in uusan daadku iyo biyuhu kuu soo gelin, horta waa in la iska moosaa. inta aynan qabow dariishadda kaaga soo gelin, dariishadda waa inaad adkaysaa. albaabka intuusan tuug kaaga soo dhicin waa inaad albaabka xidhaa. qabow suusan kuu gelin, jaakeed adag waa inaad xidhataa. lugaha suusan qabow kaaga dhicin, iskaalsho adag waa inaad xidhataa. fakadaalika sidoo kale intuusan cudur kugu dhicin waa inaad caafimaadkaaga ka dadaasho, ood fitamiinada cunto, ood caanaha cabto,
oo jirkaaga aad ka dadaasho oo cuntada kuwa qiimaha leh jirkaaga qiimaha u leh dhakhaatiirtuna ay ku taliyeen waa inaad isticmaashaa kullu daalika alwiqaayatu khayrun min alcilaaj yacni is-ilaalintu waxay ka fiican tahay goortaad xanuunsato inaad dhahdo kiniinka ha la ii qoro ama dhakhtarka aan tago maxaa looga jeedaa wuxuu sharcigu diidayaa zinada walidaalika buu alla yidhi walaa taqrabu zina saa daraaddeed baa waxaa la diiday ikhtilaadka ragga iyo dumarka kala jinsiga ah ee aan isgeyin yacni isgeyaan u jeedaa ee isguursan kara inay isdhex galaan xataa ilmahaagu 10 markuu jiro in gabdhaha iyo wiilasha qolka ay wada seexanayaan hadday awooddu ay suurto gelinayso in loo kala saaro gabadhii baa la diiday maxram la'aan inay safarto maxaa yeelay waa jinsi daciif ah waxaa suurtagala in lagu fidnoobi karo gabadhii baa waxaa la diiday in maxay ay keligeed socoto waxaa la diiday hadda nin hadday guursanayso waxaa la diiday inay iska guursato nin ayadoon weligeedii ka warqabin maxaa yeele gabadhii waa la xifdin oo waa la ilaalin meel cidlo ah baa laga qaadan karaa gabadhii barfuunkii baa loo diiday cadarkii baa loo diiday hadalkii jilicsanaa baa loo diiday kullu daalika waa arrimihii lagu imtixaamay reer banu israa'iil oo markay joojin waayeen haweenkoodii waxaa lagu imtixaamay caado iyo dhabar furan aan marna dhammaanaynin saa daraaddeed ayaa caaisha waxay leedahay low adraka rasuulullah calayhi asalaatu wassalaam maa axdatha annisaa'u lamanacahunna almasjida hadday caaisha saa tidhi ayadoo nabiga calayhi salaatu wassalaam intay ka dambaysay la yaqaanay famaa baalunaa naxnu zamankan aan joogna ka warrama zamankan ay fidnadu badan tahay walidaalika baa rasuulku yidhi sala alla alay wasalam anigu ummaddayda waa ragga raggaa laga wadaaye oogagama tegin wax ooga fidna badan adduunyada iyo dumarka ayuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam dumarku marka waa inay alla ka baqaan goortay meelaha ay imaanayaan waa inaynan ay gurigeedaba ka baxayso waa inayna ku bixin wax caraf leh waa inayna ku bixin ayadoo qaawan waa inayn bixin ama jirhkeeda la arkayo jirhkeeda qayb ka mida la arkayo waa inayna bixin dhar barfuun iyo cadar leh waa inayna ku bixin ragga dhexgalkooda waa inay iska ilaaliso amaakinta cibaadadana kaba sii daran waa inayna fidnaynin dadka ilaahay dartii cibaadada u yimid subxaana wa tacaala xadiidka 24 can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat maa shabica aalu muxammadin calayhi asalaatu wassalaam mundu qadima almadiinata min طacaami burin 3 layaalin tibaaca xataa qubida calayhi asalaatu wassalaam xadiidka waxaa soo saaray alimaamu albukhaari waalimaamu muslim ayaa xadiidka soo saaray waa xadiis saxiixa maxay leedahay caaisha waxay leedahay maa shabica aalu muxammadin calayhi asalaatu wassalaam nebi muxammed aalkiisa waa xaasaskiisa aalka xaasaskana waa la dhahaa qaraabada nabigana waa la dhahaa ummadda muslimiintaana mar baa la dhahaa laakiin hadda waxay u jeedaa xaasaskii rasuulka calayhi asalaatu wassalaam maa shabica aalu muxammadin nebi muxammed xaasaskiisii kama ayna dhergin mundu qadima almadiina laga soo bilaabo goortuu nebigu madiino soo galay min طacaami burin daqiiq yacni nadiif ah yacni burka waa daqiiqda ama burka waxaan u naqaano carabigu waa bur daqiiqna waan dhahnaa min طacaami burin daqiiq nadiif ah kama dhergin 3 layaalin tibaacan 3 habeen oo isku xigta xataa qubida calayhi asalaatu wassalaam inta nabiga laga qibdoodayoo nabiga uu ka dhintay calayhi asalaatu wassalaam oo adduunyada uu ka tegey allahu akbar ayuha alikhwa nebi muxammed calayhi asalaatu wassalaam noloshiisii wataa annaga nolosheenna ka warrama maanta haddii loo muqaarano loo sameeyo nebi muxammed makhluuqaadku alla abuuray shakhsiga ugu fadli badnaa wey buuraha ayaa waxay lahaayeen aan xoolo kuu noqonno laakiin nabigu wuxuu garanayay adduunyada qiimo xumadeeda adduunyada inayna wax qiimo a lahayn
meesha loo soconayo oo loo dadaalayo oo lagu dambaynayo waa aakharo wey. imaa janna wa imaa naar, nacuudu billahi min annaar. maa shabica aalu muxammadin calayhi asalaatu wassalaam mundu qadima almadiina min طacaami burin 3 layaalin tibaacan xataa qubida calayhi asalaatu wassalaam. waxaan mar walba aan aad iyo aad oola cajabaa nabi muxammed oo gurigiisa ka soo baxay, waxaa ka soo saarayna ay tahay gaajo. abubakar oo gurigiisa ka soo baxay, waxaa ka soo saarayna ay tahay gaajo. cumar bin khataab oo gurigiisa ka soo baxay, waxaa ka soo saarayna ay tahay gaajo. saddexdoodii oo is ogayn ayaa isu yimid, way sheekaysteen. mid walba wuxuu sheegay, wallaahi aladii laa ilaaha ilaa hu, igama soo saarin gurigayga saacadan ilaa gaajo ma ahane. dadkii war wanaagsanaa qaabkaasay nolosha ka soo mareen, way allayna ugu dhowaanayeen oo allay caabudayeen subxaanahu jalla wacala. laakiin maanta markaan dharagnay oo dhinac walba cuntadu naga taallo, ayaannu kibirnay oo ilaahay taacadiisii aan garan weynay subxaanahu wa tacaala. xadiidka 434 xadiidka 43 baan u jeedaa can caaishata radia allahu tacaala canha can الnabiyi sala allahu alayh wasalama qaal ma min shayin yusiibu almu'mina xata ashawka tusiibuh ila kataba allahu lahu biha xasana aw xutat canhu biha khati'a. xadiidkani bukhaari iyo muslim baa iska leh soo saaray. lafdigan meesha ku yaallana muslim buu khaas u yahay. wallafdu limuslimin calayhi raxmat ullah. caaisha waxay leedahay radia allahu tacaala canha, maa min shayin shay ma jiro, shaygaasoo yusiibu almu'mina, qofka mu'minka asiibaya. shay ma jiro qofka mu'minka a asiibayo ku dhacaya, hadday noqoto xanuun, hadday noqoto jirro, hadday noqoto xoolo yaraan, hadday noqoto imtixaan ilmihiisa lagu imtixaamo xagga iltisaamkooda diiniga ah iyo xagga dhimashada iyo xagga dhinac walbaba. musiibo qof mu'mina ku timaaday ma jirto. xataa shawka, qodaxna allaha ka dhige, qodaxdaasoo tusiibuhu asiibaysa, yacni qodax mudaysaba allaha ka dhige oo xanuujinayse. wax asiiba qofka mu'minka ah ma jiro oo hadduu ku sabro ilaa kataba allaahu lahu biha xasana, musiibadaas sababteeda ilaahay wuxuu oga qoraa ajar subxaanahu wa tacaala. weliba halka ajirna waa loo sii badiyaa oo waa loo laablaabaa. man jaa'a bilxasanati falahu 10 amhaaliha waman jaa'a bisayi'ati falaa yujza ilaa milaha. waa ka alle subxaanahu wa tacaala. weliba xasanada 700 iyo ka badan ayaa loo sii laablaabi ilaa adcaafin kahiira, iyo weliba intaa iyo in ka sii badanba. saa daraaddeed bishaarayso qofka muslimka ahow, wax alla wixii kugu imaada oo musiibo ah. cajaban liamri lmu'mini ina amrahu kullahu lahu khayr. mu'minkan la yaabay buu nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam. weliba riwaayada waxay leedahay sifada iyo tilmaantaana qof aan mu'min ahaynba ma lahan. oo waa maxay? hadday dhib ku timaado oo dhib ku yimaado waa uu sabrayaa, inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. hadduu wanaag ku yimaadana waa shukrinayaa, lain shakartum la asiidannakum. tilmaanta ayaa iska leh, mu'minka oo keli ah ayaa iska leh, ayuu nabigu leeyahay calayhi asalaatu wassalaam. walidaalika baa nabigu yidhi addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir. adduunyadaad arkaysaan waa qofka mu'minka ah xabsigiisa, qiimo ooma arkayo. maxaa yeelay wax walba ku yimaada raaxo ayuu oga baxayaa. qalbigiisa alla ayaa ku weyn. maxabbada jacaylka rabbi iyo wuxuu tiigsanhayo oo janno ah iyo raadi ahaanshada rabbi ayaa waxay tirtiraysaa wax alla wixii qofka mu'minka ah ku imaada. amaa gaalka wax yar hadduu ku dhaco, asagu ilaahiisu waa adduunyada, ilaahiisu waa dhaqaalaha, ilaahiisu
وهوانك يا خمرضة مالنتو وايو وإسدليا دبقي أي اسكسو توريا فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله على التدين إلهي إنو ضد متدينين نغدغي إسلام إيو إيمانا لوغو النعميي تاسا إلهي أغو الشكرينا ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة بالله قرى حديث قيمتي سكر كوبادوي أو حطت وحلق قدادية عنه أساق حقيسة بها مصيبة السبب كذا خطيئة وحي قفأة أيا لك قدادية لبن مدوي إن وناك إيا أجر درجات حسنات ثواب خيرات جنة إن لغو بديو إيا إن لغا ترترو وحل وحي دنبئة معاصئة حمانة أو أدقشي إن لغا ترترو هذا فضل الله أركان وفضل إلهي سبحانه جل وعلا أوسيي قفك مؤمن كأه أركان مؤمنكم بالله تعالى حديثك أفرتنات عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه رواك إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده يفعل ذلك 3 مرات حديث كان بخاري باوريني عجيبة قيمة بدن ونكسن لدونا يئنا تربية قادنه عرورتنا دمركينا أنكو تربيينه معلكو برو عرورته ووحبريه هو يدو أي برتو المهيدا زوجكو برو زوجديسة زوجدو أي برتو زوج كيدا نبينا عليه الصلاة والسلام وحاوها إذا أوى إلى فراشه قوشي سهدو الظلمه أو قوشي سآدو أو قوشي أوقله ومرك الله سيحانا إيه محوسة من جري هرت أسوغو ويسقبو سيحان جري عليه الصلاة والسلام محارعي لأن النوم أخو الموت قيردة إيه هرددو وولالو هرددة إيه قيردو وولالو si aad u soo kici doonto allah ayaa garan lidaa ayaa lagaa doonayaa inaad diyaar garowdo horta soo weysayso sida meydka loogu weyseeyo kale nabigeena calayhi salaatu wassalaam muxuu samayn jiray nafatha fii kaffayhi labadiisa kaf waa inta yare dhaqaaqda la dhahaa ayaa kaf la yidhaahdaa labadiisa kaf ayuu sidaasi isugu dumi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam kadib uu ku tufi jiray qul huwa allahu ahad suratul ikhlas wa bil mu'awwidhatayn qul a'udhu bi rabbil falaq iyo qul a'udhu bi rabbin nas saddexdaas aayadood suuradood jamiican saddexdaas ayuu nabigu ku tufi jiray laba qaab way ku banaan tahay qaabka koobaad waxa ku banaan inaad qul huwa allah saddex jeer ku aqrido kadibna aad ismariso qul a'udhu bi rabbil falaq saddex jeer aad ku aqrido gacmahaaga xoogaa yaroo candhuuf yar iyo neef wada socdana aad dhahdo kale aad isku tuftoo kale kadibna aad mariso sidoo kale qul a'udhu bi rabbin nas suurad walba goonideeda waa wax kuu bannaan maxaa kaloo kuu bannaan gacmaha saa inaad dhahdo kadibna qul huwa allah aad ku aqrido saddex jeer qul a'udhu bi rabbil falaq saddex jeer qul a'udhu bi rabbin nas saddex jeer kadibna aad isku masaxdo waa kuu bannaan tahay nabiga calayhi salaatu wassalaam thumma yamsaxu bihimaa wajha horta wejiga ayuu ka bilaabi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam iyo wamaa balagad yadaah gacmihiisu intay gaadhaan oo min jasadihi gacmihiisu in alla intay gaadhaan yacni dhabarka iyo gacmaha iyo caloosha jirka intuu gaadho oo dhan ayuu nabigu marin jiray sala allahu calayhi wa aalihi wasalam yafcalu daalika
ثلاث مرات صدح جير بو نبي سمين جري صدح ذا جير النبي سمين جري أما وي وذا السعودان أما مذو البقوني ذي أيوه وقلت في جري كدمنا شركا مرين جري عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حديث كأفرتني يا شنات عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. رواه البخاري. حديث كان الصقعة الإمام البخاري باسورنا صارية من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحيد عينيسا قبله رير مهاجراتك مكة كيمت أيد عينيسا عائشة رضي الله تعالى عنها يرحم الله أن حريستو نساء المهاجرات الأول هوانكي هوري مكة كسو هاجري أن حريستو هوانك مكة كسو هاجري أن حريستو لما نزلت مركا أي سودلتي هذه الآية آية مركا أي سودلتي الليلي وليضربن هدبولين بخمرهن خمار كوضها كدبولين على جيوبهن رومهوضة الكم رومت إياك الحمت إياه هكدبولين مركا آية سودلتي وألله سبحانه هوانكي هوري عربته يعني قارت وأوقع ونان شرتي قارت إيو دقاها إيو قارت إيو إنتن كامتغانا هذا شفك أهو إنت بلن بهذا نركا قبلهن الله طلو وحا الله سميا هلكا والقد اللاعيا oo shirkadaha ku tala galaba marka horeba sadaradeed bad arkaysa inay gabdhaheenu inta badan ay halka ay faydaan gaar ahaan markii la gaaro samarka iyo waxa la midka ah marka gabadha muslimada ah is asturto oo shirkeeda ha qariso alla wuxuu yiri waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin ayada markay soo degtay ayatul hijab ayaa laga hadlayaaye ayatul hijab markay soo degtay قرآنك سورة الأحزاب سورة النور الله كذا ورميه قبلها مسلمات كإني أستران أو شركة أي قريان سيدو الليل يا أيها النبي اللويلي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحاضر هذا هوانك إيا قبلها إيا هوانك مسلمات كأقرن كستو إيمان دونان قل لأزواج ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن هل رارعيين دو شوضا جلباب كوضا هكون رارعيين آيات سورة النور آياتك كتشرنا إلهي وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا انت لصور ريبا مركا لغريبو آياتا مركا يسود دكتي والنبي كدو الأقريين صحابة عليه الصلاة والسلام قابك أي كسود حجابك مفسرينتو أسباب النزولك قيبك لددوان بي كالشيغاني وحكا استبها النقضاء markay aayatul xijaab ay soo degtay nin walbana gurigiisii ku soo noqday u sheegay xaaskiisii gabdhihiisii iyo cidii uu mas'uulka ka ahaa akhadna gabdhihii waxay guda galeen akhadna uzrahunna waxay guda galeen hoos guntiyadoodii fashaqqaqna ayay qaadeeno fashaqqaqnaha way jeexeen min qibali alxawaashi
waxay ka jeexeen darafyada ayay maryahooda ka jeexeen kadibna fakhtamarna bihaa khimaar bay ka dhigteen yacni intay maryahoodii qaybo ka soo jeexeen ayay gabdhihii khimaar ay ka dhigteen ay ku qariyaan dhuumahooda iyo madaxa iyo qoorta marka ay ku qariyaan saas bay waxay ahaan jireen saxaabada markii waxyi soo dego isla mar ahaantaa khayaar mayn lahayn markiiba amarka way fulin jireen waana arrinta laga doonayo mu'minka qaala jalla wacala fii suurati alaxzaab wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara haddii allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa gabadha mu'minadda ah iyo ninka mu'minka ah inuusan wax khayaara lahayn haddii alla uu amar xukumo inay dhahaan annagaa khayaar leh aayaadkaa way badan yihiin axaadiidtaa way badan yihiin xijaabkaa ka mid ah khamradii la xarrimay baa ka mid ah wahaakadaa baa qofka muslimka ah laga dooni nasku markuu soo gaadho deliilkana u caddaado inuu u degdego amarka inuu fuliyo sida innagoo kale ma aha intaa diinna lagu dul akhrinayo haddana inaanan dhaqan gelin karin diintii dhaqan baan u qaadannay oo dhegaysi baan u qaadannay laakiin oomayna qaadanin yacni dhaqan innaa wajadnaa baan ka wadaa waan maqli jirnay dhegaysi baan u qaadannay laakiin shay aan tadbiiqinayno oon dhaqan gelinayno oo aan miiska saarayno oon leehay maanta xadiidkan baan maqlay nebi muxammed baa yidhi walle maanta ima dhaafto aayaddan baan maqlay qur'aankay ku taallaa nebi muxammed baa lagu soo dejiyey walle maanta ima dhaafto wixii horena allow ii dhaaf dembigii aan soo galay allow ii dhaaf xijaab la'aantii allow ii dhaaf maanta ayaan toobad keenay naskanna maantaan maqlay arrintaas weeye middana laga doonayo masaladaa keliya maaha ayi mas'ala arrintaa way middana laga doonayo xadiidka 46 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا رواه البخاري حديث كان الإمام البخاري بصو صارية نبينا عليه الصلاة والسلام حليه عائشة حديث كان كورين النبي صلى الله عليه وسلم وعيتني أيضا تلامسة كان النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحوءها إذا رأى المطر هذا النبي أرك الرب إيا مطر صوص على ضروري أو صهري أو الرب كأوب اللوضة قال وحوليتري اللهم صيبا اللهم اجعله الله وحد كدكتا صيبا كدك أي مطرا إله يا الرب كدك نافعا نافعة أو وحنا ترى oo dad iyo duunyaba ay ka doogsadaan dhulka ku barwaaqoobo soo saara roob soo saara wax ay dad iyo duunyaba ay daaqaan ay ku doogsadaan ilaahayow roob saasa nooga dhig allow ha nagu halaagin allaayow mid cudurro wata ha nooga dhigin mid xoolaha naga dhammeeya ha naga dhigin mid intuu waxna dhib noo keeno naga taga ha nooga dhigin mid intuu do'o aan biyo dhigin oon biyihiisa laga cabbin allow ha nooga dhigin allaahuma ajcal allah waxaad ka yeeshaa sayiban ay mataran allahayow roob nooga dhig naafican naafic oo waxna tara allow nooga dhig ayuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidka 47 can caaishata radia allahu canha qaalat قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا رواه البخاري حديث كريم عائشة رضي الله تعالى عنها أيا وحيلا لهي سؤال بنبي محمد ويدي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله وحي رسولك له يوم إن لي جارين أي إن جارين لي لما درس بالله إن لي وحائيس ناضي جارين لما درس بالله فإلى أيهما لما درس كاذبا أهدي
aan wax u hadiyeeyaa sadaqada iyo hadiyada labadooda yaa xaq leh. cuntadaan karsaday wixii soo haray ama waxaan ugu talagalay yaan siiyaa. neefka xooleen qashay yaa xaq u leh inaan hilibkiisa siiyo. qaala calayhi asalaatu wassalaam ilaa aqrabihimaa minki baaba, labadaa deris midka albaabkoodu kugu dhow yahay, ilaa aqrabihimaa minki baaban, kii albaabkiisu kugu dhow yahay ayaa u xaqnimo badane kidaasii buu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam. waa goorma? waa marka ay labaduba baahan yihiin. laakiin ka albaabkiisu kugu dhow yahay hadduusan baahnayn oo ka kale uu baahan yahay kaasaa laga hormarinayaa. laakiin qaacidadani waa qaacido tilmaamaysa labaduba hadday baahan yihiin ama ay kulligood ayna baahnayne caadi ay yihiin, kuwa kugu dhowaa marka xaqa iska leh. rawaahu albukhaari. marka deriska qiimihiisaa laguu sheegayaa. deriska shareecadu meel adag bay dhigtay. deriska ha noqdo mid muslima, deriska ha noqdo mid qaraaboho muslima, deriska ha noqdo mid gaala. xarbi waa inuusan ahayn oo gaalood markaa dagaal idinka dhexeeya waa inuusan ahayn. xadiidka 48 can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaqbalu alhadiyata wa yuhiibu calayha. nabiga calayhi salaatu wassalaam xadiidkan alimaamu albukhaari baa soo saaray min xadiidi caaishata radia allahu tacaala canha wa ardaaha. caaisha maxay leedahay? kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa yaqbalu mid aqbalo oo qaata alhadiyata, hadiyada nabiga loo keenayo. hadiyada xataa gaaloo u keento nabigu waa qaatay calayhi salaatu wassalaam. walidaalika asalka hadiyada cid kastoo kuu keenta waad qaadanaysaa, kaafiran kaana am musliman, bisharti shayga laguu keenayo waa inuusan ahayn shay xaaraama oo sharcigu diiday. gaal iyo muslim midna kama yeelaysa. hadduu qof khamro kuu keeno, hadduu muslim yahay iyo hadduu gaal yahay midna kama yeelaysa. limaada? lianna aslu shay waa muxaram fi kitaabi illah wa sunnati rasuulihi calayhi asalaatu wassalaam. midda labaad waa horta asalku waa middaa weeye. masalada waa masale asala wey, shay xaaraama unbaada ka yeelaynin. midda kale waxaa suurtagala oo adilada ayagana laga garanayaa shayga laguu keenayo ee gaalka xaggiisa kaaga imaanaya waa inuusan ahayn shay laaluush iyo wax lamida ku imaan kara, yacni ummad lagu baabi'inayo oo adiga lagugu marsiinayo oo calaa xisaabi muslimiina waa inay noqon. muslimiinta waa inay xisaab u noqon arrinta ayada. taa ayada lama ogolo. hadiye caadiya waase qaadan kartaa. yaqbalu alhadiyata. midda saddexaad waa inayna ahayn munaasabaad diini iyo caqiido iyo manhaj ka turjumaya sida kirismaska iyo maxaa la yidhahdaa ciidda acyaadda gaalada hadayaadkoodana lama qaadan karo. limaada? lianna hadiyadan waxay ka soo dhex baxday farax shareecadeenna marka la fiiriyo baatil ah oo caqiido xumbaarsan. haddaad hadiyadaa qaadato waxay ka dhigan tahay adigoo u sujuuday sanam, adigoo qof sinaysta yidhi waan kugu tahniyeynayaa. maxaa yeelay nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam bay ku been abuuranayaan. arrinta ayadaa lama ogolo. kaana rasuulu llahi sal alay wasalam yaqbalu alhadiyata wa yuhiibu calayha. wa yuhiibu calayha waa maxay? nabiguna waa ka abaalmarin jirayoo asagana wax kaluu siin jiray. oo qofka hadiye u keena asagoo gacmo maran nabigu ma diri jirine asagana waxbuu siin jiray calayhi asalaatu wassalaam hadduu markaa waxayo. xadiidka 49 can caaishata radia allahu canha qaalat kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa casafat alriixu qaal allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra maa fiiha wa khayra maa ursilat bihi وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كان عجيب كابي عائشة نغسو قورين
tilmaamihii nabiga sifaadkii nabigana ka mid ah calayhi salaatu wassalaam waxyaaluhu nabigu dhihi jiray waxay tihi kaana nebiyu wuxuu ahaa calayhi asalaatu wassalaam idaa casafat irriixu dabayl adag hadday dhabato oo dabayl adag ay soo baxdo dabayl geedaha goysa oo geedaha gilgisha boodh iyo ciid iyo quruurax wadata hadday timaaddo idaa casafat irriixu haddii ay dabayli dhabato oo dabayl ay soo kacdo qaala wuxuu dhihi jiray calayhi salatu wasalaam allaahumma innii as'aluk maxaa yeele dabaysha waxaa laga yaabaa cudurray bay wadato dabaysha waxaa laga yaabaa ummado in lagu halaago saas daraaddeed allaahumma innii as'aluka khayraha oo reer caadba maxaa ku dhacay falammaa markay reer caad ilaahay ka sheegay subxaanahu wa tacaala caaridan mumtiruna waa ki way falammaa reer caad markay arkeen dabayl soo socoto roob bay moodeen yacni wax daruuro soo socdo markay arkeen waxay dhaheen haadaa caaridu mumtiruna kani waa mataqaanaa dabayl ama waxaan u jeedaa waa daruur noo roobaynayso ilahay muxuu yidhi bal huwa ma istacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim tudammiru kulla shayin biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ilaa masaakin waa kan leh allaahumma innii as'aluk nabigu wuxuu dhihi jiray allah waxaan ku weydiisanayaa khayrahaa dabayshaa khayrkeedaan ku weydiisanayaa wa khayra maa fiiha waxa ku dhex jiro oo khayr ana alla waan ku weydiisanayaa wax alla wixii ku dhex jiro oo khayr ana alla waan ku weydiisanayaa wa khayra maa ursilat bihi wixii lala soo diray wixii lala soo amray wixii lala soo diray oo khayr ana alla waan ku weydiisanayaa inanay dabayshu waa un mataqaanaa rasuul alla soo diray oo matar bay muqadimiya hordhac u tahay wa acuudu bik alla waxaan kaa magangelayaa min sharriha dabayshaa sharkeedaan kaa magangeli wa sharri maa fiiha waxa ku dhex jiro oo shara baan kaa magangeli wa sharri maa ursilat bihi iyo wixii lala soo diray oo shar ah ayaan kaa magangelayaa sida ayuu dhihi jiray nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam xadiidka ugu dambeeya maanta dersigeenna waa xadiidka kontonaad can caa'ishata radia allahu tacaala canha can الnabiyi sala allahu alayh wasalam qaal alraximu mucallaqatun bilcarsh taqulu man wasalanii wasalahu allah waman qatacanii qatacahu allah bukhaari muslim baa xadiidkaa werinaya min xadiidi caa'ishata radia allahu tacaala canha caaisha waxay leedahay ayadoo nebi maxamed nooga soo waraysa nabigu wuxuu yidhi alraximu qaraabadu mucallaqatun waa mid lagu xidhay bilcarshi carshi qaraabadu carshigay saa ugu dhegaysaa maalinta qiyaamo carshiga ayay saa ugu dhegaysaa qawaa'imul carsh carshiga lugihiisay ku dhegaysaa taquulu waxay leedahay man wasalanii qofka i xidhiidhiya wasalahu allah allaha xidhiidhiyo waa duco waman qatacanii qofka i gooyana qatacahu allahu allaha gooya waa habaar subxaana allah maxaan ku gaboodfallay qaraabada maxaan xidhiidhin weynay qaraabada nas'alu allaha alcafwa waalcaafiya ilaahay waxaan ka baryi anigiyo idinkaba inuu xadiidkani noo noqdo zaad iyo sahay iyo isdabaqabasho wixii tegey oo lasoo dhaafay lasdaba qabto oo dib laga xidhiidhiyo qaraabada alraximu mucallaqatun waxaa lagu xidhay bilcarsh taquulu waxay leedahay man wasalanii qofka i xidhiidhiya wasalahu allah allaha xidhiidhiyo waman qatacanii qofka i gooyana qatacahu allah wayba habaartamaysaa allaha gooyo ilaahay nama gooyo subxaanah allaha naga dhigo kuwa qaraabadooda iyo eheladooda sida xaqa u xidhiidhiya inta ayaan ku daynaynaa maanta dersigeenna inta aanu kaga kulmayno biidni illaahi subxaanahu wa tacaala dersiga kan ku xiga wa ilaa liqaa'in aakhar wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu